taalada SYL oo dhawaan dib loogu dhisay barnaamijka isxilqaan ayaa xalay waxaa lagu qabtay kulan loogu mahad celinayay howlwadeennada isxilqaan iyo taliska ciidanka asluubta oo ku guuleystay barnaamijka isxilqaan oo taalada SYL ay ka mid tahay astaamaha qaran ee dib loogu hagaajiyay. kulankaasi waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda, taliyaasha ciidamada asluubta iyo militariga, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale. xildhibaan maxamed cumar dalxa iyo senator samsam daahir ayaa taliska ciidanka asluubta iyo howlwadeennada isxilqaan uga mahad celiyay dadaalkooda ku aadan dib u dhiska dalka. waxa ay dhalinyarada ku booriyeen inay xoojiyaan xirfadaha dalka dib loogu dhisayo halkii ay siyaasadda danayn lahaayeen. dhalinyaradu adduunka waxaa loogu talagalay waa professionistayaal, waa niman aqoontooda waxbarashadooda dhakhaatiir, looyarnimo, injineernimo, wax kasta oo dalka iyo dadka horumar inay qaybtooda u qaataan sidii loogu talagalay ay ujeedkeena iyo baraarujinteena ay tahay. maaha dhalinyarada dadkoo dhan inay wada siyaasiyiin noqdaan. caawa kaleeto waa maskax dhisid dadka in wax loo sheego, meeshan quruxda badan in isxilqaan lagu dhisay, in maaragtay ayagan ay ka qayb qaataan in la dareensiyo wadaniyada aad ay muhiim u tahay. waa idin kaga maaragtay mahad celinayaa shaqada sharafta badan oo aad qabateen, anagana garabkiina nahay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Engineer Risow ayaa isna munaasabada ka sheegay in barnaamijka isxilqaan uu caasimada ku soo kordhiyay bilic wanaagsan, mar dhowna la guran doono miraha barnaamijkan. waxaa muuqanaysa in wax walba la qaban karo. dhawaan waxaan filaynaa in barnaamijka isxilqaan oo runtii dardar ku socda in mirihiisina la wada arki doono, oo tiyaatarkii sida wasiiradda u sheegtay, madxafkii, maktabadii, istaadii Muqdisho iyo goobo fara badan oo runtii habka isxilqaan lagu dhiso ayaa jira. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in dib u dhiska taalada SYL ay kaalin weyn ka qaadanayso xuska maalmaha xurriyadda oo toddobaadyo kadib loo dabaaldegi doono. waxaan annaga wasaaradda dhalinyarada isboorti ahaan aad ugu faraxsannahay inta meelood hadday noqoto tiyaatarka, taalooyinkii kale, madxafka, maktabadda, istaadii Muqdisho, meeshii ugu horeysay oo lagu soo hormaray oo lagu dabaaldegay. marka waxay noo tahay farxad weyn. suurtagal ma noqoteen ka wasaarad ahaan iyo ka isxilqaan ahaan haddaan la helin taliska ciidanka asluubta Soomaaliya. ugu dambeyn waxaa munaasabada abaalmarin lagu guddoonsiiyay taliska ciidanka asluubta iyo howlwadeennada barnaamijka isxilqaan oo lagu bogaadiyay howlkarnimada ay muujiyeen iyo dib u dhiska dalka. Maa'ida Muxiidiin Dhiblaawe, warbaahinta qaranka, Muqdisho.